أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaa inoo wadaa laba kareem maasha Allah oo maalin iyo habeen ah maasha Allah tabaarakallah. halkana waxaad ku arkaysaan maaragtay maasha Allah faa'iidada ay leedahay saliidan aan kareemkan ka sameyn doono biidnillah. waliba kareemka night creamka waa rose hip oil oo maaragtay waxaan oo dhan maaragtay sawirada aad ku soo aragtaan maasha Allah faa'iido ka haday tahay dildilaaci haday tahay maaragtay eyelasheski oo si qurux badan maaragtay kugu baxayo maasha Allah tabaarakallah. haday tahay maxaan ku raahdaa dibnaha qaleylka ay ka ilaalinaysaa maasha Allah. waxay ka dhigaysaa shumaha kuwa softi ah oo runtii aad u qurux badan maasha Allah. darayga ka ilaalinaysaa haddii maaragtay damage ama kugu dhaco wax maaragtay accident jirka wixii damage gaara ayay ka bi'inaysaa. waxay ka dhigaysaa mid nadiif oo maaragtay dhaawacii ayay ka qayb qaadanaysaa maasha Allah. dhan kale waa qalajiso haddii maaragtay wax disease ay kaaga dhacaan in jirka hoostiisa nabraha hoos maaragtay sida xiriga camal jirka ka gala waxay kaaga dhigaysaa jirka mid maaragtay maasha Allah softi ah oo maaragtay aad u qurux badan oo soo jiidasho leh. haddii indhaha hoostoodii ay ku madow yihiin way ku cadaynaysaa. haddii maxaan ku radaa skinkaagana waxay ka dhigaysaa mid lighting ah maasha Allah tabaarakallah. walaalahayga marka maasha Allah saliidaas faa'iidadeeda u jeedaan ayaan ka samaysan doonaa night cream biidnillah baari. waliba night creamna wuu noola socdaa insha Allah. ku samaysa kareemada maaragtay maxaan ku radaa night creamkaaga gurigaaga ku samayso wax tayala adigu ogtahay ka samayso maasha Allah tabaarakallah. halkan waxaan ku haysanaa dacar jab dacaran soo goostay ayaan ku haysanaa. dacarta faa'iidadeeda waad ogtihiin. waxaan kaloo haysanaa iyadoo gel ah iyo iyadoo fresh ah labadii noocba waan haysanaa. marka adiga taa haystid ayaa ku samaysan kartaa biidnillah baari. kareemkan waa kareem aad u faa'iido badan runtii. saliidan waa saliidan laga soo sheekeeyay waxyaalaha ay maaragtay tarto iyo faa'iidada ay jirka u leedahay. waxaa la dhahaa rose hip oil. marka maasha Allah tabaarakallah haddaad helaysid soo iibsan ku dhihi lahaa kugula talin lahaa. waa saliid aad u fiican maasha Allah tabaarakallah. skinki maaragtay wax badan kuu taraysa insha Allah. aadna uga maarmi doontid wax badan oo aad ismarmarin jirtay insha Allah. haddaad ka samaysatid kareemo ama haddaad sideeda u marsatidba ama haddaad saliida ku darsatid waxa aragtid ayaad ku samaysan kartaa. marka maasha Allah tabaarakallah waxaan rajeynayaa walaalahayga meel kasta dunida ka joogta inaad ka faa'iideysan doontaan. halkan waxaan ku haysanaa biyaha ubaxa ama rose water. marka rose waterkina maaragtay maasha Allah isaguna faa'iido badan ayuu jirka u leeyahay maaragtay biyuuriga uu ka qayb qaataa. marka waxaan rajeynayaa inaad kolley maxaan ku rahdaa insha Allah gabar walba ay maaragtay intaanoo kale inka badanba ay samayso maaragtay maasha Allah tabaarakallah. qurux dabiici ayaan u baahannahay maaragtay natural ah biidnillah baari. halkan waxaanu ku haysanaa vitamin capsule oo maaragtay isagana maasha Allah faa'iido badan jirka u leh kaligiis xataa hadaa marsid wax badan kuu taraya. waxaan kaloo halkan ku haysanaa saliid glycerinka maasha Allah tabaarakallah waa 600 kan. hadii laakiin inta gramkiisa uu yahay aad haysatid baa ku samaysan kartaa. kan capsule-kaana iska ilaaliya gelatin ayaa lagu sameeyaa korkiisa ka samaysan yahay. marka gelatinkaasna iska hubiya insha Allah biidnillah baari. meesha ka soo gadanaysaan weydiiya biidnillah. marka intaanaan ka samaysan doonaa hadii ilaahay idanka ka dhigan. waxaan kaloo iyadana haysanaa kareemkana isagana tirkiisa waa kareem maaragtay maxaan ku radaa anti aging ah oo maasha Allah tabaarakallah. dareygana maaragtay qofka dadka dareygana u fiican oo maaragtay jirka iyo korka kalaba aad marsan kartid oo aad maaragtay yaan kaaga dhigaya ama qofta yar maasha Allah. marka intaanaan insha Allah ka hagaajisan doonaa night cream iyo day cream gurigaaga ku samaysan kartaa adoo wax dabiici ka samaysanaya maasha Allah. lacagtaadina ay ku maaragtay dhaqaaloobayso biidnillah baari. wixiina aad hubtid leydkaa samaysay iyo markuu kaa dhammaanayo iyo waliba wixii kaa aad ka suurta gelisid. marka waxaan rajeynaynaa insha Allah waxay warshado inoo soo sameeyaan inaynu ka maarmi doono naga dhan aan wada warshad noqon doono gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilashaba maasha Allah aan la soo bixin doono inagu bardhagtiyo maaragtay ka tayo leh oo maaragtay jirkeena munaasabaya biidnillah baari. marka walaalahayga soo dhawaada meel xilli kasto inay tahay iyo meel kasta dunida ka joogtaanba waxaan leeyahay maalin wanaagsan maasha Allah tabaarakallah. hadda waxaynu kala soo baxaynaa jeelkii ayaan kala soo baxaynaa dacarta una maaragtay halkan aan ku xoqaynaa. hadda qaadada iyo xas aan u qaato
waxaan ugu xoqayaa inay maaragtay iyadu biyo tee maaragtay maasha allah liquid ah iyo meeshii kasoo baxdo oo mashumaysa on burbur iyo waxba lahayn maadaama ay fresh tahay mise warshad soo marin saala adligeed baan u xoqayaa laakiin adigu xaartid ayaad samayn kartaa aniga sidaana ila haboonaatay caqligii markaa yarkaa ka shaqaysiiyey marka maasha allah kule waxaa rajaynaya walaalaha biyurugeena ka faa'iideysan doonaan anigana waxaan runtii waan ka faa'iideystay idinkana waxaan rajaynaya inaad ka faa'iideysan doontaan biidnillaahi baari fikrad bilaasha iyo maaragtay maasha allah waa od heshay fikrad adduunku waa iib laakiin anagu fikradeena ayaan rabnaa inaan walaalahayo ku caawino maasha allah waxaan maaragtay anagu aan markaa maskaxda yartaa kasoo tuujino ama aan hindisno biidnillaahi baari marka akhwaati fillah aad iyo aad ayaan naga mahad celinaya ku xirnaanshaha janalka mar walba iyo mar saddexaad iyo mar labaadba maaragtay inay mahad celinaya ilaahi subxaana watacaala mahadda koowaad iska leh idinkana waxaad ku mahadsantihiin garab istaagga iyo dhiirigelinta iyo sidaad noo garab taagantihiin mar walba komentiyada quruxda badan aad noo reebtaan janalkiina aad ku xiran tihiin walaalaha cusubna waxaan leeyahay soo dhawaada janalku waa janalkiina waa janalkeena waa janalka bulshada soomaaliyeed waana ka wada faa'iideysan doonaa biidnillah waxaa anigana waqtiga soo geliyay inaan ina faa'iideeyo idinkana inaan inaga faa'iideysto biidnillahi baari marka walaalahayga aad iyo aad ayaan maaragtay iniga baahannahay support iyo maaragtay inaana garab istaagtaan haddaan nahay walaalaha soomaaliyeed oo youtuber leyda oo gabdhaha iyo wiilal intaba annaguna waa inaan isgarab istaagnaa bulshada soomaaliyeed waxaan ka rajeynaynaa iyadoo inaynu garab istaagto oo ina caawiyaan oo maaragtay inaan hore u soconno ay nagu dhiirigeliyaan marka maasha allah tabaaraka allah hadda marka jeelka waa soo samaysanay waxaynu haysanaa 2 xabaan kala soo baxnay saliida inay maaragtay adiga aad rabtid tirada aad rabtid ku darsan kartaa iyo roosi hibtiyoon haddana waatan soo furanay insha allah marka iyadana waan ku darsan doonaa qaadada weyn oo cuntada biidnillaahi baari ayaan ku shuban doonaa kalarkeeda waa yellow ama waxaan ku dhahdaa gold maasha allah marka waan ku darsan doonaa vitamiinkana waan ku dari doonaa biidnillaahi baari 2 mid haddaad rabtid waa ka badsan kartaa haddaad rabtidna maaragtay maasha allah haddaad oilka haystidna waad ku darsan kartaa marka sidaas insha allah ula socda biidnillah koley qof walba wuxuu haysto oo wax ku samaystaa marka waxaa laga yaabaa inay maanta gurigaaga yaalo hadda soo olina maaragtay dhib ma lahan fitamiinka wejiga iyo kubcigiisii iyo maaragtay darayga inaan ka ilaalino ayaanu maaragtay insha allah ku dadaalaynaa dadka oil kale ayaguna maaragtay maasha allah way marsan karaan waayo dacarti baa ku jirta oo iyadu maaragtay maxaan ku rahdaa ay la dagaalanta oilka marka maasha allah tabaarakallah haddana halkan waxaan ku haysanaa saliidda gelisiriinka aad bay jirka u fiican tahay dhar skinkay ka ilaalisaa oo maqaarka dhintay ayay maaragtay ka hadijinaysaa jirkana way kuu qoynaysaa jirkaaga mid dabacsan oo qurux badan soo jiidasho leh ayay ka dhigaysaa anti agingka maaragtay xataa iyadana maaragtay maasha allah aad ayay ugu fiican tahay marka axbaab filahda isku qaraacayna kareemkan isku si fiican isu dhexgelinayna insha allah biidnillaahi baari markaasna maxaan ku rahdaa wixii nooga soo bax wayna isla arkayna hadda kareemkeena waa inoo diyaar maasha allah maadaama uu maaragtay xoogaa ugu jilicsan yahay laakiin jirka ma kasoo soconaya hadhow waayo lafeerada qabanaysa midda kaleeto wuxuu kaloo kaa caawinaya kareemkan inaadan wejiga saabuun wax saabuun ah ama maaragtay shaambooyinka wejiga lagu dhaqdo maaragtay maxaan ku dhahdaa face washka midna inaadan ku dhaqanaynin maasha allah oo asaga saabuuntiis ku wata waayo dacartii fresha kugu jirta marka maasha allah tabaarakallah waa ujeedaan saas soofta jirka uga dhigaya light ayuu kaaga dhigaya runtii soo tijaabi qurux adiga dhan waxaa soo arkaysa maasha allah marka insha allah soo tijaabiya saasuna maaragtay maxaan ku rahdaa biyaha markaa iska dhaqdidna uma baahna inaad maaragtay ku dhaqdi bahalka ujeedaa labada gacmood gacantaan mariyay oo ujeedaa kalarkii mar hore samaysay isisha inay qurux iyo gold u noqoto iyada dhanbo marka maasha allah tabaarakallah gold kalar haddaa rabtid kareenkan soo samee saliidaasna ka samayso faa'iido badan ayay leedahay maasha allah tabaarakallah wax walba maaragtay marsado gacmahan ku mariya ay ku baroobeeyaan ku hormariya maasha allah tabaarakallah ay gacmaha howl badan bay qabtaan waxay u baahan yihiin dux badan iyo maaragtay in si fiican maaragtay wax loo gaarsiiyo maadaama ay shaqooyinka iyagu qabanayaan jirka kale ka howl badan yihiin biyihii kululaa iyo wixii dhan dabkii wixii dhan ku dhacayaan marka haddana waxaan samaysanaynaa qaybtii maalinta halkan waxaan ku haysanaa saliid D vitamin oil baan ku haysanaa tani waa maaragtay titrobiska ahayd weeyaan kaninkii ma ahan marka aad kaninka xataa oo D vitaminka waad isticmaali kartaa deegana waxaan u doortay maalinta maadaama maaragtay qoraxda la helo qoraxdana caafimaad tahay dhulka aan joognana qoraxda isaga yar tahay in maalinta wejigana uu qoraxdii ka helo halkaana waxaan ku haysanaa rose waterkii iyo kareemkan
iyo dacarta jeelka asagana ku dari doonaa insha allah kan kalena fireshkan ku darnay marka asagana haddaynu isku darsan doonaa biidnillaahi baari ila soco insha allah waa wax yaro fudud insha allah lagana yaaba gurigaaga inaad ka wada helaysid way ku wada yaalaan biidnillaahi baari marka qaadaan ka isticmaali doonaa kareemkan aad ayuu maaragtay jirka soft uga dhigaa anta ejina wuu yahay maasha allah marka haddana waxaan ku darsan doonaa dacartii waxaan ku dari doonaa insha allah ilaa 2 qaado ayaan ku dari doonaa biidnillah hadda qaadaan ku darayaa insha allah marka ila soco waxaan ku daraynaa biyaha ubaxa iyaguna maaragtay kama badinayno maasha allah biyaha ubaxa aad bay jirka ugu fiican yihiin dhasiiskii bakteeriyada waxa dhan bay kala dagaalamayaan maasha allah waana maaragtay nuurinayaan iskinkii bay dhalaalinayaan marka haddaan isku soo darnay aan qaraaci doonaa insha allah biidnillaahi baari ila soco marka biidnillah haddana waxaan ku daraynaa saliidii day fitamiinka ayaan ku daraynaa ayadana haduu qaadada yar camal haddana qaado weyn haysta laakiin qaadada yar camal aan ku darsanayna haddaa rabtidna qiyaasta waad ka badsan kartaa qiyaasta aday kugu xiran tahay aniga hadba intii maaragtay igu filan ayaan isticmaalaya insha allah halkan waxaan dara ku daraynaa qaadada gelisaliin ayaan ku daraynaa ayadana maasha allah saliidan aad buu fiican tahay saliida gelisaliinku marka insha allah sidaas la soco gurigaaga aan laga waayin marka waxyaalaha qaaqasanaysid hadday xataa facebook tahay ku darso maasha allah hadday maaragtay shumburo yar wax yar digir yar wax yar haddaa isku darsanaysid ku darso maasha allah tabaaraka allah faa'iidad ka arki doontaa biidnillaahi baari marka haddana kareemkeena saas isagana ku qaraacnay qaadadii labaad ayaan ku darnaa jeelka xoogaa ku yara maaragtay maxaan ku rahdaa adkeynaynaa biidnillaahi baari marka insha allah sidaana maaragtay kareemkeena kalan udheyd kareemkana intaanu ka koobnaa waxaan rajeynayaa kulli inaad runtii ka wada fahanteen maaragtay dee maaragtay wixii laga sameynayana waan la soo hordhigay dana saas oo tahay sharaxaadiina waan ku daray dee waxaan rajeynayaa marka kulli inaan kula shaki iiga jirin haddii wax aad fahmi weydid aad ku aragtid meesha insha allah commenti hoos iigu soo qor sida ugu degdega badan ayaan rajeynayaa insha allah inaan kugu soo jawaabo biidnillaahi baari marka waa kaas day kareemkee iyo night kareemkeeni saana maanta diyaar noogu yahay insha allah intaan fiidiyogan fiidiyo lamida ku kulmi doono waxaan rajeynayaa waxaan igaga tegayaa fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu janalku waa janalkaagii